بسم الله الرحمن الرحيم كلانتم waxaan daawadayaal meel walba ka joogtaan dunida dacaladeeda halka nagala socotaan oo barta YouTube iyo Facebook caalamka 24 post taariikhda caawa 12 bishii 6 2023 qodobada wararka caalamkooda ugu weyn ka mid ah dagaal faraha loogu gudbay ka socda dalka Ukraine ciidamada Ruushyaanka oo khasaare baan u geystay ciidamada Ukrainiyiinta madaxweynihii hore dowladda Mareykanka Donald Trump oo lagu soo oogay 37 dacwadood oo fayl oo kiis ah رئيس وزراء dalka Canada oo boqosho ku jooga caasimada dalka Kiev wasiirka gaashaaniga dowladda Ruushka Sergey Shoigu oo saraakiil ciidamada ka mid ah ka dagaalamayay dalka Ukraine oo uu dilacsiyay warkii faahfaahsan waxa kala socotaan barta YouTube iyo Facebook caalamka 24 post daawadayaal see wax u dhaceen waxa la sugayay in reer galbeedka ay qalabayeen ciidamada Ukrainiyiinta si ay ugu sheegeen kuna qalabayeen hub nooc ugu dambeeyay iyo tababarba hase yeeshee ciidamada Ukrainiyiinta ayaa la filayay inay qaadaan xilliga qabowaha laga baxo ee samarka la gala kuleelaha inay rogaal cali sameeyaan si ay ugu sheegeen ay ku qabsadaan dhulka ka maqan kuna jidho magaalada gobolka la yiraahdo Crimea ee ku jirto iyo afarta gobol ee Ruushiyaan ku dhawaaqeen dhawaan ay ku dareen dalkaas hase yeeshee waxa la soo bandhigay video sheegaya wasaaradda gaashaandhigga Sergey Shoigu soo bandhigay inay ciidamada Ruushiyaanku ee afka ciid u dareen taangiyadii iyo qalabka ay wateen ciidamada Ukrainiyiinta waxay uu sheegay wasiirku 300 askari inay ka dileen ciidamada Ukrainiyiinta afar taangi oo Leopardska oo nooca uu sameeyay Jarmalka Leopard taangi loo yaqaan 11 baabuurta gaashaamana 5 gawaarida Mareykanku sameeyo sidoo kale Zezer kuwa Faransiisku sameeyo ciidan fara badan laga qabtay weerarka waxay ku soo qaadeen oo khasaaraha badan ciidamada Ukrainiyiinta ka gaaray magaalada Zaporizhzhia la yiraahdo ee xarunta nuclearka ugu weyn ee ku taalo ee koonfurta gobolka Kherson una dhow dhinaca Donetsk halkaas ay weerar rogaal celis ku soo qaadeen hameen hore warkaan wuxuu soo bandhigay wasiirku saaka ee subaxnimadii waa barigii daawadayaal ciidamada Ukrainiyiinta iyo jab ayaa ku yimid hubkii ugu dambeeyay oo casriga ah oo la dhulkooda ku xoreysanayaan Ruushiyaankana gobolo kale kaga qabsan doonaan waxa la soo bandhigay muuqaalo hubka lagu burburiyay ilaa hadda dowladaha reer galbeedku waxay la yaaban yihiin mucjisana ku noqotay qaabka loo burburiyay hubkan iyo maartay qaabka iyo hubka lagu burburiyay waxa burburiyay ilaa hadda dowladda Ruushka ma sheegin qaabka loo burburiyay laakiin arrinkan mucjiso hadaba daawadayaal waxaan nisoo gudbinayaa muuqaalkii oo faahfaahsan in ay la daawataan ayaan rabaa qaabka loo burburiyay taangiyadii casriga Jarmalka iyo Ingiriiska iyo Mareykanka ku bixinayay oo hubkii kala gaashaana ciidamada qaada gaadiidka noocyada kala duwan wasaaradda gaashaaniga ee Ruushka ee soo bandhigtay gaar ahaan wasiirka difaaca dowladda Ruushka Sergey Shoigu waxayna sheegeen 300 iyo ka badan askari inay dileen waa kana fiidiyoogii la daawada أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير مستودعات أوكرانية تضم ذخيرة وأسلحة ومعدات عسكرية غربية بما في ذلك مسيرات بضربات عالية الدقة بأسلحة بعيدة المدى بحرية وجوية. وخلفت الضربات الروسية في محور الزاباروجيا دمارا لحق بأسلحة الناتو ومعداته وأحدث دباباته على غرار اليوبارد الألمانية ومركبات أمريكية. وتسببت المعارك في محور الزاباروجيا في مقبرة تجمعت فيها بقايا الأسلحة والمعدات الغربية التي تم إرسالها إلى القوات الأوكرانية، حيث تظهر صور مركبات قتال مشاة أمريكية ودبابات ألمانية من نوع اليوبارد 6A2، الدبابة الأحدث والأكثر خطورة في خدمة قوات دول الاتحاد الأوروبي وكييف. أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير مستودعات أوكرانية تضم ذخيرة وأسلحة ومعدات عسكرية غربية بما في ذلك مسيرات بضربات عالية الدقة بأسلحة بعيدة المدى بحرية وجوية. وخلفت الضربات الروسية في محور الزاباروجيا دمارا لحق بأسلحة الناتو ومعداته وأحدث دباباته على غرار اليوبارد الألمانية ومركبات أمريكية. وتسببت المعارك في محور الزاباروجيا في مقبرة تجمعت فيها بقايا الأسلحة والمعدات الغربية التي تم إرسالها إلى القوات الأوكرانية، حيث تظهر صور مركبات قتال مشاة أمريكية ودبابات ألمانية من نوع اليوبارد 6A2،
الدبابة الأحدث والأكثر خطورة في خدمة قوات دول الاتحاد الأوروبي وكييف. daawadayaal sidoo kale wasiirka difaaca ee dowladda Russia Sergey Shoigu wuxuu soo bandhigay BMK ama Grand qoriga loo yaqaano oo difaaca hore ee dhinaca Bakhmut iyo gobolka Donetsk kaga jira jiida hore ee ciidamada Ukraine fadhiyaan aad u baabiinaya oo gantaale maaragtay lamadeeyo ku dhufanaya. Wasiirku wuxuu sheegay inay khasaare badan u geysteen jiida hore ee gobolka Donetsk. Video maanta soo dhigay bartiisa Twitterka iyo qaybaha kale baraha bulshada. Sidoo kale wasiirku wuxuu gaashaaniga Russia Sergey Shoigu wuxuu soo bandhigay gawaari fudud oo casri ah oo reer galbeedku haysan oo ay ku xiran yihiin lidka taangiyada. gaariga magaciisa waxaa la yiraahdaa TGC waa gaari maaragtay baabuurta fudud oo kale laakiin waxaa ku xiran qoriga lagu waarsado taangiyada. sida ogtiinba taangiyada lagu soo hobeeyay dowladda Ukraine ee reer galbeedku bixiyeen kuna faanayeen shacabkooda u sheegayeen in dhulka looga xoreyn doono raashaanku ka qabsaday Ukrainiinta in dhammaantood taangiyada badankooda la burburiyay. ciidanka gaarigan wata oo ku shaqeynaya magacooda waxaa la yiraahdaa Russian Special Forces ama ciidanka maaragtay gaarka aad u tababaran ee Russianku ay leeyihiin kuna faanaan ciidamadan oo ugaarsanaya taangiyada Ukrainiinta baabuur fududna wata ayaa wasiirku soo bandhigay videoga. sidoo kale wasiirka gaashaaniga dowladda Russia wuxuu soo bandhigay gaari qufulan sida taangiga oo kale ah laakiin lidka diyaaradaha ay ku xiran yihiin iyo maaragtay iyo radar. gaarigan oo ugaarsanaya asna sida diyaaradaha droonka ama waxyaalaha maaragtay gantaalo soo dhaco kale ama diyaaradahan hawada ku duulayo maaragtay hadda reer galbeedku waa siinana ama helicopter oo kale wixii aad hawada soo gala radar baa ku xiran lidka diyaaradaha ku xiran. wuxuu hoos joogaa geedaha hoostooda santaleerkooda badanaa ma soo qaban karo ama maaragtay droonada ay soo diraan markiiba aaga iyo difaaca uu bedelanaya. waa gaari maaragtay sida taangiga oo kale markiiba markuu hawshiisa guto haddana booshiska bedelanaya. daawadayaal dagaalkii Ukraine waxa uu u socdaa faraha ayuu ka baxay xaalkiisa. wasiirka gaashaaniga ee dowladda Russia ayaa saraakiil dilacsiiyay kuwaas oo ku sheegay geesiyaal dalkooda guul u soo hoyay. saraakiishan la dilacsiiyay ama ciidamadan la dilacsiiyay waxay ka dagaalameen dalka Ukraine waxaana loo dilacsiiyay darajooyinka ugu sareeya dalkaas qaybahooda ciidamada kala duwan. warka waxaa kala socotaan Calas 24 Post qaybaha kala duwan ee baraha bulshada sida TikTok, YouTube iyo Facebook. daawadayaal asxaabteena la wadaaga warka ku xigana waxaan ku faahfaahin doonaa bal arrimaha ka soo gorra dalka Ukraine. sidoo kale waxaa la sheegayaa in bisha soo socota madaxweynaha Putin shalay uu ku dhawaaqay in la geyn doono dalka Belarus hubka sida baan wax u gumaada nuclearka. arrinkaas oo walwal ku keenay dowladda Kiev. ra-iisul wasaaraha dalka Canada oo booqasho maanta ku jooga rasmiga magaalada Kiev sidoo kale aan la shaacin booqashadiisa inkastoo khasaare uu soo gaaray ciidamada kharashka badan ay ku bixiyeen oo kafar ama loo sameeyo maaragtay go'ol lagu duuday ama dah si aan miidiyo u sheegin khasaaraha iyo jabka soo gaaray ciidamada Ukrainiinta iyo qalabka ay ku hubiyeen reer galbeedka. sida daraadeed ay ugu direen ra-iisul wasaaraha inuu booqdo magaalada Kiev. halkan nagala socotaan barta YouTube Calas 24 Post.